الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب ولا على الإله ومهاد سكال سبحانه وتعالى إنه سورة قليل كل كون أكسن بركيسن يسكون نمت waxaan kaloo u mahadnaqayaa ururka xafladda soo agaasimay samawada oo aan iman dhalinyaro aad u dadaal badan oo mudan marka in la dhiirigeliyo aad bay u mahadsan yihiin madaxda ka soo qayb gashay ee gudoomiyaasha xagga xisbiyada xildhibaanada ardayda mas'uuliyiinta saxaafadda dhammaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan kaloo u mahadnaqayaa cid kastoo ka qayb qaadatay kulli hadalka inaan badiimo doonayo waxaan doonayaa in buugga inaan toos u yara galo cid kastoo ka qayb qaadatay buuggan inuu soo baxo oo u mahadnaqayaa mahadnaq keliya maayo weliba waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ducana waa ku daraya intaa dabadeed buuggan diiwaanka akhlaaqda runtii waxaan is idhi akhlaaqdu waxa dadka ay ku kala hareen waa akhlaaq weeyaan qorista buuggan waxaan bilaabay 11 bishii afraad 2015 bishii abriil 11keegii oo markaa ku beegnayd 22 bishii jamaadul aakhir 1436 hijrada waxaana buuggan qoristiisu ay gabagabowday bifadlillaahi wa mannihi anigoo ilaahay ugu mahadnaqaya 10 bishii 12aad 2008 bilood ayay qaadatay anigoo iska mashquulsanaa oo aroortii dee shaqooyinkaygii hawleyga iska qabsanayay ayaan saacadii yara haleelo ayaan yara waday oo yara qorayay runtii buuggan waxaa igu dhaliyey inaan qoro waxay ahayd way ku qoran tahay buugga qofkii akhrista laakiin haddaan yara tilmaamo laba oday ayaan arkay oo odayaashiina ka mid ah dhaqan ahaan dee ila dadku waa iswada dhex jooga oday yara dabeecad fiican oo marka xaafadiisu uu dariiqa soo socdo ay caruurtii wada farxayaan islaantii farxayso dumarkii la wada farxayo aabbaa soo socdo maxay la soo dhawaynayo iyo oday yara dabeecad adagoo markuu halkaa soo socdo ay caruurtu yaacayso ay aqalka daaqada kasii dhacayaan ama siday u cararayaan sariirta u isgelayaan yani cabsi waxay ka qabaan waxyaabaha aan la yahay waxaa ka mid ah islaantiiyo maalan xaaskiisiyo dumar kale la joogaan ayaa odhanaysa odaygii baas baa soo socday iminku igu qayliye iska socdo kolkuu beri yara shaqo tagaan ayaan idin soo mariye marka waxaa yara dareemi karaysaan farqiga labadaa qof iyo labadaa xaafadood u kala dhexeeya xaafadan yara habiga ah yara faraxsan waxay ku faraxsan tahay waxa weeye akhlaaqda aabahood oo murabbigoogii ah xaafadan yara murugaysan yara dhibaataysanna ama yara cararaysa ama ma garanaysaayay waxa dhibta ku haya waa odaygii aabahood ahaa oo nolosha aan waxba ka fahmin halkaasi marka waxaan ka yara qaatay oon ka yara fahmay noloshu inay akhlaaq tahay iminka magaaladeena waxaa jooga dad badan oo aqoon leh laakiin yara dabeecad adag akhlaaqda horta marka la tacriifinayo wax kale ha u fahmin waa dabeecadda wey af carabiga alakhlaaq waa dabeecadda weliba qaamuuska almuxiid la yidhaahdo sida kolley aan buuggaba ku caddeeyey oo qaamuus af carabiya wuxuu leeyahay kelimad macnaheedu yahay akhlaaqdu waa dabeecadda qofka iyo habdhaqankiisa wax kale ma aha imaam al-Ghazali abu xaamid al-Ghazali isagana wuxuu ku tacriifiyey akhlaaqdu inay tahay wax qof nafsadiisa ku dhex jira waa qofka wax ku dhex jira wey waxyaabahaasoo kaaga soo muuqanaya qofka oo ficiladiisa iyo hadalladiisa ah marka uu ficiladaha samaynayana maaha wuxuu ka fiirsaday ama uu ka fikiray maaha waa wuxuu si degdega kelimadu si degdega u yidhaahdo iyo actionku si degdega u sameeyo akhlaaqda la sheegay waa taa wey laakiin qofku wuxuu ka fikiray ama uu ka fiirsaday maaha buugu 6 cutub buu ka kooban yahay kolley dee ma wada akhriyi karayo laakiin waxaan isku dayayaa bal inaan in kasoo yara qaado dadkii walaalaha ka hadlayna aad bay u mahadsan yihiin meelo wanaagsan bay ka soo qaadeen cutubka koowaad waa akhlaaqdii nabiga calayhi salaatu wasalaam imaamkeenii weynaa ee rasuulkeena ahaa calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisii weeyey akhlaaqdii nabigu aad bay u dibacsanayd saan inagu haysana maaha dad baa laga yaabaa nebigu jihaadi jiray un in laga soo qaado oo adayg maaha waa sax laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisa waxaa ku jirtay dibacsanaan badan tawaaduc badan saamaxaad badan waxyaabo fara badan oo markaa ku tusinaya akhlaaqda nabiga calayhi salaatu wasalaam inay tahay mid inaan ku dayano markaa mudan
cutubka labaad jaahiliyadii carbeed carabta waxa weeye qabla alislaam intuun islaamka imanin ka hor waa dadkii caalamka ku noolaa weeye jaahiliyatul juhalaa bay ahaayeen dad aad u aqoon yar oon aqoon lahayn oo wax qorin waxna aqriin bay ahaayeen oo gaala ah oo sanam caabuda iyaguna waxaan ka soo qaaday waqtigaas kulley waa tilmaami doonaaye nuqaad baan ka soo qaaday qodobka saddexaad waa nimanka reer galbeedka la yidhaahda ee aan aad ugu ta'asurnay ee dhalinyarteeni maanta gebigeenuba aan wada daba ordayna ee inagu jecelnahay iyaguna akhlaaqda maxay ka yidhaahdeen laba buug ayaa adu ugu muhiimsan utruk alqalaq wabda alxayaat kulley luqada ingilishka inkastoo aan eela ka yara dhigtay gelin waxaan ictimaada luqada carabigaan kaga fiicnahay ingilishka weli miskiin baan ku yarahay marka waxaan ka yara faa'iidaysaa inkastoo luqad ahaan aan jeclahay inaan weliba imarkii aan barto waxaan ka yara faa'iidaysaa bugaagta ay reer galbeed ku qoreen af carabi loo turjumay baan kitaabka buugaa la yidhaahdo utruk alqalaq wabda alxayaat oo yani argagaxa iyo cabsida noloshaad ka aaminsantahay iska ilow iyo wixii aad soo martay iminka nolol yaroo wanaagsan oo habiya maanta yara bilaaba yani iyo buugga la yidhaahdo kayfa taksib alasdaqa nin dale carrel la yidhaahdo maraykanaa qoray sidee baad saaxiibo wanaagsan u yeelan lahayd marka rumuus baan ka soo qaaday iyo nuqaad sheekh culimada muslimiinta ka mid oo sheekh cabdiraxmaan naasir asacdi la yidhaahdo kitaab uu qoray oo la yidhahdo alwasaa'il mufiida fi lxayaat asaciida oo kitaab aad u yara waxyaabaha qofku nolol wanaagsan uu ku gaari karo isna waan soo qaaday qodob baan ka soo qaaday anigoo siiro garab dhigay xadaaradda islaamiga ee ku dhisan adduunye aakhira ku dhisan iyo xadaaradda reer galbeedka ee iyada ku dhisan adduunyadan inay u shaqaystaan labadaasaan isaga dhigay qofka si uu wax u fahmo masalada qosolkoo kale waa soo qaaday reer galbeedku waxaa lagu tarbiyadeeyaa kollay san buwaagtooda ka aqriyey qofka meherada iyo ganacsi iyo waxle dadka shaqaalihiisa wuxuu baraa inay dadka soo dhoweeyaan xitaa hadday akhlaaq xun yihiin akhlaaq xumada waxaa la yidhahdaa aqalkiina la fadhi halkan waa ganacsi waxaan doonaya inay wax iga soo galaan dadka inay ku soo ururaan marka waxa weeye waa inaad dadka soo dhoweysaa waxay keenaysaa qofkiioo ku yara caraysan oo hoosta kaa nacladaya inuu ku yara qoslo ilaan shaqadiisii shaqada laga yareeyahay calooshan uu kaa nacladaya alla yalcanag una ku dhoola cadaynaya laakiin dhoola cadaynta islaamku ina farayo waa daahiran wa baadinan weeye qofka si niyada haddaad qofka u dhoola cadaysid adigoo caloosha ka nacladay munaafiq calaamaatul munaafiq ayaa islaamku u yaqaanaa taana waa waxyaabay ku kala duwannahay waxyaabo badan baa jireen cutubka afraad qisooyin xiisa leh ayaan kusoo yara ururiyey qutubka shanaad samafalka waalidka ubadka in loo samafalo dadka walaalaha in wanaag lagula dhaqmo asxaabta jaarka adduunyada in fikrad laga haysto carabtii hore naxariis darradii waxay ku dhaqmi jireen oo hablaha inay nolosha ku aasi jireen ininkii u horreeyey ee nolosha ku aasay gabar cutubka u dambeeyana waa taariikhu lkhulafaa urashidiin abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali oo aan u arkay inay yihiin imaamyadii waaweynaa ridwaanullaahi calayhim akhlaaqda iyaguna aanu ka faa'iidaysan lahayn haddaba akhlaaqda nebiga kolley dee waa wada garanaysaan anas binu maalik xadiidkiisa inagu filan wuxuu leeyahy nebigu calayhi salatu wasalaam 10 sano ayaan u khidmaynay anas inan yaroo reer madiinu ahaa nebigana muhaajir maka ka yimid buu ahaa xitaa dadku bay ahaan isagu markuu nebigu ku barbaaray ninkan inan yaroo madiine ku nool may keenin xitaa anas wuxuu leeyahay nebigu weligii ima canaanan waxaanan samayn maxaad u samayn weyday waxaan sameeyey maxaad u samaysay ima oran waxaan la yaabay buu le nebigu markuu dadka gacan qaaday uu salaamayo salaan yaroo dabacsan calayhi salaatu wasalaam innagu dadka iyaga xoog waaweyn dhalinyarta waxaa laga yaabaa inaan qofku yaro lowladay salaanta waxay yara tabcaana laakiin nebigu calayhi salatu wasalaam uu ilaalin jiro dadka si yaroo dabacsan buu u salaami jiray akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahay waxyaabo fara badan baa nebigu afxumada ma aqoon ma kaana faaxisha walaa mutafaaxish suuqyadii meelaha markuu joog muu qatayli jirin aayar buu hadli jiray salawaatullahi wasalaamu calayh qofka xumaan ku sameeya xumaanku ma abaalmarin jirin salawaatullahi wasalaamu calayh wuu saamixi jiray bal iska daayay shaksi iyo laba iska daayay ummado dhan buu nebigu saamaxay maka oo dhan magaalada maka oo nebigu dhibaato ku samaysay calayhi salaatu wasalaam ayuu iska saamaxay innagana waxaa laga yaabaa qof nuqda kusoodaa maalin keliya kelimad yar inagu yidhi inaan halkaa ku yara haynoon idhaan hebel maalin buu sidaa igu yidhi marka arrintaasi waxay ka hor imanaysaa islaamnimada aan sheeganayno nebigu deeqsi buu ahaa salawaatullahi mithaala buuga kolley waad ku arki doontaa geesi buu ahaa salawaatullahi wasalaamu caleyh tusaalayaal baan ka soo qaaday waxaad arki doontaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa dadka masaakiinta ayuu jeclaa doorkaasna waa doorka maanta aynu gabnay weey in dadka masaakiinta lala fadhiisto oo baahiyahooga iyo waxyaabaha ay ka cabanayaan in wax laga qabto oo qof kastoo inaga naga midu xil iska saaro qaasatan dadka agoomaha iminka magaalooyin kale hargeysa oo kale dhulalka kale waxaa laga yaabaa
inay naga yara wanaagsan yihiin oo xagga ay nagaga horeeyaan marka in inaguna aan bal naxariista inaan bal maaragtay nolosheena nabigu wuxuu leeyahay xadiisul qudsi xadiis baa man laa yarham laa yurham irhamu man fi samaa yarhamukum man fi al-ardi yarhamukum man fi samaa naxariis inaga isku hayna haddaan inaga isku naxariisano ilaahayna inoo naxariisanayo kaayaga jilicsan haddaan u naxariisano oo nabiga marka salawaatullahi wasalaamu calayh waxyaabaha aynu ka dhaxlayna waxaa ka mid ah dadka aqniyadu ma jeclayn sheekha kitaabka raxiiqul maqtafiy raxmaan mubaarak fuuri baa la yidhaahdaa wuxuu soo naqilaa nebigu inuuna dadka maalqabeenka inuuna u tawaaduci jirin uuna soos dhigi jirin uuna markaa isku dullayn jirin laakiin dadku nebigu isku u tawaaduci jiray ee u dhex fariisan jiray salawaatullahi yani iskamana weynaysiin ha u fahmin markaan leeyahay dadka ganacsadka waxaysan nebigu uma tawaaduci jirin waan ku leeyahay ha u fahmin inuu iska weynaysiin jiray ma nebigu isla weyni malayn salawaatullahi laakiin dadku nebigu danayn jiray waxay ahayd fuqarada beejka 17aad iyo beejka 19aad laba qiso oo tilmaamaysa nabiga dadkii u tarbiyaday salawaatullahi wasalaamu calayh ee cadaaladda uu ku tarbiyaday iyo wanaaga ayaan ku soo qaaday qisada hore waxa weeye ninkii Camar bin Caas la oran jiray beejka 17aad Camar bin Caas wuxuu ahaa barasaabkii Masar furtay buu ahaa Masar qabsaday ee muslimiintu hogaaminayay ciidamadii Masar qabtay buu madax u ahaa markii dambe barasaab in badan buu barasaab ka ahaa Camar bin Caas saxaabi jaliil waa radiyallahu anhu marka inay yaro Camar bin Caas uu dhalay barasaabkii Masar uu dhalay iyo inaan qibdi kristana oo yar ayaa maalin beritamay fardi waxay ku beritameen waxa dhacday in Camar bin Caas oo barasaabkii inankiisa ah waa laga badiyay fardihii waa laga dheeriyay faraskiisii dabeed uu xanaaqay jeedal buu soo qaatay wuxuu doonay miskiinkii yaraa ee kristanka ah ayuu garaacay dhowr jeedal buu ku dhiftay wuxuu yiri ana ibnu al-akramin anu waxaan ahay nin aabi sharaf leeyahay sharaftu ku faanayna waa abeeba barasaaba weey dabeedkii yaraa isagoo ooyay dadku arkeen waxay yiraahdeen waa nin kristana oo muslimiinta la nool oo reer Masar waxay ku yiraahdeen magaalada Madiina yaratag Umar bin Khattab baa muslimiinta hogaamiya wallahi waa laga jaray intan ugu sameeyay kii yaraa uu lugay bil buu sii lugaynayay wuxuu tagay Madiina wuxuu amiir muuminiinka tusay waa inaan yar waa la tusay Umar buu galay wuxuu ku yiri arintaas ka cabanay hadda waa inaan yar kristana iska dhaaf wax kala oo musaafira Umar uu soo fadhiisiyay uu karaameeyay halka ay fadhi cuntada cun halka jiibso warqad buu qoray Camar bin Caas inankaaga hebel soo kaxay degdegna uu soo galay Camar bin Caas inankiisii wadaba Masriin dabadeetana wuxuu ku yiri intuu inankii yara soo kaxeeyay ee qibdiga ahaa ikii Camar bin Caas waa bii la socda ayuu meel banaanka halkii lagu sameeyay jiray xuduudda ama dadka dambiyada gala laga jari jiray halkii uu geeyay jeedal buu soo saaray wuxuu yiri qabso jeedalkani inanka Soomaaliya ku garaacay ha intuu kugu dhifteen leegaabiyo ku arkay ka jaro kii yaraaba dhowr jeer ku dhiftay jeedalkii markaasuu Umar bin Khattab wuxuu yiri madaxana kaga jid aabiyo ku arkay madaxana kaga jid dabadeeto arintaasi aad bay qiira u gelisay wuxuu yiri amiir muuminiin khalaas intaan doonay waa ka jartay markaasuu kelimad ku yiri kelimadu waxay ahayd ya Umar ibn al-Caas wa hada barasaabkii xalala hadlay متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار قومت بلودن dadkii inaad gumaysataan qof kasta isagoo xoray hooyadii dhashay muslim hada ma gaar qof adoonnimo ku dhashay ma jiro bin aadam eega yani halka cadaaladda islaamka gaaray miithaalka labaad ee beejka 19aad aan ku soo qaaday waa beejkii koowaad waxaan ku cutubkii koowaad baan ku jiraa qaadigii la oran jiray qaadi Shureex waqtigii amiir muuminiin Ali ibn Abi Talib baa magacaabay وقاضي قد مدحوينها مقعاوي امير المؤمنين كان مقعاوي دبدين مالي مالما كميد امير المؤمنين كقميص بيرو خدان جيري اياني يهوديه با كخادو جاكيسا بريغانا در بدن ما هيسن مسلمين كان امير اي كشعبا دبديت waxay keentay qamiiskii birta ah ee dagaalka loo qaadanayay markuu arkay ninka yahuudigu qamiiskiisa xiran waa amir المؤمنين muslimiintu dhan ninka xukumoobay laba askari uu dhiibi kar la sida maanta day tahay mu dhiibeen waliba ku yar buu telefoon inta uu dir warka yar markaysa yahuudigaasi gidaar ka soo goobo waran la mu yeelin maxkamadu tagay Shureexul Qaadi buu tagay wuxuu ku yiri ninka yahuudigan ka cabanaya waxa kaga cabanaysa qamiiskayga buu iga xad u xidhay amir muuminiin ku cabanaya kan uu cabanayna waa qaadiga ka baawar weyn xagga sharciga qofka madaxweynaha madaxda xagga sharciga weyn sharciga markay tahay qaadiga ka baawar weyn loo cadaalad la rabaa inuu wax ku kala saaro arintaasi waxay keentay yahuudigii baa loo yeeray fariin baa loo diray kaalay uu yimid maxkamadda maalinta kaalay waa la weydiiyay isagoo sharafta laga qaadin baa la yiri
ورنيكني ولي أمير المؤمنين وحن مجبتو مركا لا يسايستو ورنيكن علي بقى عمانيه قميص كانت حرنتها هي برتا isaga lahaay saasu leeyahay bal dhageyso cali baa hadlay war qamiiskayga badni u siirtaa qamiiskan aniga leh war may aniga leh sharciga islaamkana waxa weey muddaci alayhi baa la kala yiraahdaa ka wax sheeganaya iyo ka wax lagu sheeganayo ka wax sheeganaya isagu marqaatiya laga doonaya ka wax lagu sheeganaya gacanta wixii ku hayana dhaar buu wixii ku milkin karaa علي وحكو دودي inankayga xasan inamadayda xasan iyo xuseen baa garanayo marqaati waxa lagu yiri inamadaadi way maraku ma garanay halka ka bax yahuudigi baa la yiri yahuudigi baa ku dhaarto qaat yahuudigi baa loo xukumay amiir muslimiinta ninkii ugu sareeyay ee madaxda waha iyo ma garanaysaay nin yahuudiya ayaa wax soo qabto yahuudigi baa gartay islaamku cadaalad islaamka waa taa weeyaan marka waxa ku tusinaysaa islaamku xagga cadaaladda labada qof ay sayay waxa isku hayaan oo islaamku xalliya laakiin kan baa yahuudi iyo kan baa kristaan ama kan baa ma jirto xagga cadaaladda taasina waxa ku tusinaysaa ninkii yahuudiga uu islaamay wuxuu yiri war ashhadu an la ilaha illa allah kaale qamiiskaagi waa kan toobad keenay sida ma mooday islaamku waa caadil wuxuu yiri adigoo yahuudiga ka qaadan way qamiiska maantooda islaamtay iyo ka qaadanay iska hadiyad baa kaaga dhigay qaado jaahiliyadii carbeed maxaan ku falay markaan soo qaadanay waxaan uga jeeday nabi maxamed dadkii laga soo dhex saaray alayhi salaatu wasalaam siday ahaayeen wax ka fahanno dadkaasi waxay u badnaayeen dad isdila islaaya dad isku xoog sheegta ka daciifka kan xoog weyn baa dilayay kan miskiinka waa la muquuninayay qabaa'il bay u dhisnaayeen xitaa adab al-jaahili qofkii wax ka yaqaana ala la yadlimanna alayna fanajal fawqa jahli jahilina nin baa ku hanjabay war annagu yuna qofna soo agmarino na taabsanay hadduna taabsaday intuu noo geystay labin laab baanu ka jaranaynaa siday ahayd jaahiliyada ku kalena wuxuu lahaa qofka yani darkiisa aanan hub ku difaacanin wuxuu lahaa waman laa yadlim innaasa yudlami qofkan dadka dulmin waa la dulmaya bimacnaa waxay ku noolaayeen hebelow ismuuj wax iska celi haddii kale waa lagu dulmaya berina jimicsan baa lagu arkaya ilaa alkacabsi diin ma jiraan gaalay ahaayeen dadkii noocaasa haddaba ee sidaa ahaa ayaa waxaa ku jiray haddana sida ay tahay dad wanaagsan dad akhlaaq leh oo akhlaaqdan aan doonayna qaar ka mid ah baa ku jiray waxaa ku jiray dad xagga amaanada nagaga wanaagsan hadda kuwa salam caabudkan sheegayo waxaa jiray dad amaanada nagaga wanaagsan anigana idhoo igu daro nagaga wada wanaagsan tusaalayaal baan soo qaatay nin samwaal la yidhaahdo ayaa tusaale ibnu kathiir oo kale kitaabkiisa siiratu nabawiyada wuxuu ku sheegaa ninkaasi inuu ahaa mathal xagga amaanada hadda waxyaabahan kuu soo wada ninkaasi nin shaacir oo gabyaa imrul qays la oran jiray waa la wada yaqaanaay ayaa qamiis bir u xidhan jiray buu ku amaanayso yahay wuu safray dabeetna nin baa ku damcay nin baa u yimid nin xaaris ibn abi shamir la yidhaahdo ayaa doonay inuu wuxuu sheegto qamiiskii ka qaato wuxuu yiri wallahi nin baa igu amaanaysay ninkii oo yimaado ma walaal inaan ku dhiibay hadda waxa macna badan ku fadhiyana ma ahay arintii waxay keentay ninkii xaaris ibn abi shamir inuu yiraahdo qamiiska ninka leeyahay dhiibay inankiisu qabtay seef buu la soo baxay inankaaga kurka ka jaraya wuxuu yiraahdaa doonaysa ka jar aanu ballan waxa ku qaaday inaan qamiis nin leeyo amaana inaan ku dhiibay ilaa inankiisu kurka laga jaray way sharaf bay u arkayeen waqtigaasi sharaf buu arkayay ninkan samwaal in isagoo amaanada tahaya oo de amaanadii xajiyay oo aanan cidna ka taabsan walow inankiisa ku dhintay isaga cisi buu arkay maanta inagu laakiin lagama yaabo waxyaabahaas oo kale waxyaabaha wanaagsan ay lahayn bay ka mid tahay marka waxa kaloo jiray saddex qiso iyagana isku yara xiga oo amaanadii ballanta ka hadlaya waa kasii gudbaya xaatim ad-daayi baan qisadiisa xusaya oo ku soo qaaday buuga xaatim ad-daayi wuxuu ahaa masal bay carabta u soo qaadan jiray day qabiilka la yiraahdo Adi ibn Xaatim abi weeyaan tusaale loo soo qaadan jiray waxa tusaale looga soo qaadan jiray xagga karam hadda waqtigii jaahiliyada islaamka ma jirin islaamka hor baahay xagga wax bixinta masal buu ahaa waa ninka laga sheegay inuu qadada marka loo soo dhigo cuni jirin ilaa qof loo keeno la cuno kaligiina wax uu diiday haddii qoyska dhexdiisa la waayo qof wax la cunan wuxuu oran jiray waxaan doonayaa halka islaamka intuu diro oran jiray dibadda u bax qof miskiin oo gaajaysan ii keen on wada cunteen haddii qadada la tag nin cajiib waa ninkaas taariikhdu aad bay uga sheekaysay nabigu calayhi salaatu wasalaam inantiisa u faantay odaygan beri hore u dhintay wuxuu ku yidhi aabbaha hadduu islaam ahaan lahaa waa u ducayn lahaa laakiin wuxuu samayn jiray akhlaaq wanaagsan bay ahayd akhlaaqda muslimka ahayd akhlaaqda mu'minka ahayd laakiin aabbaha ammaan in la ammaano u samayn jiray wuxuu nin sharaftiisa ku adag
oo dadkii aanay yani sharaftaada meel kaga dhicin xaggaasu ka eegi jiray maadaama islaamnimadu weli ayna soo gaarin xaatim udaa'i markaa nin deeqsiyo xitaa inankiisa waad aragteen abyaad baa lagu ammaanay biabihi iqtadaa cadiyun cala alkarami waman yashaabaha abaahu famaa dalama haddii ibnu xaatim aabbihii buu waxbixinta kaga dayday baa layidhi ninka aabbihii shabahays u ekaadana dee hooyadii muu dulmin baa layidhi waa fariidkaasi waxa kaloo markaasi saddex arrimood buu inamadiisa u dardaarmo wuxuu yidhi ubadkaygu xaatim udaa'i wuxuu yidhi saddex arrimood baan anu weligay buu yidhi dad jaarkaygii dad aan garanaya kelimad yaroo layga sheegay kumaan qabsan buu yidhi kow iska ilaaliya buu yidhi weligay qof buu yidhi aamini maan qiyaamayn buu yidhi oo khaa'inimo kulama socon weligay qof xumaan kumaan samaynin buu yidhi inaan ku sameeyana maan dooni jirin inaan wanaajiya maaha waxa kaloo halkaa aan raaciyey anigoo ka yara faa'iidaysanaya ma garanaysaa hadallada waxaa jira hadalla qof wax u dhimaya ama ummad wax u dhimaya qaasatan ninka qofka hadduu macallin yahay ardaydoo kale in laga ilaaliyo maalan daha xusein buuggiisii baan soo qaaday ayaamun min xayaati waa buug af carabi ku qoran daha xusein waa nin doctor daha masaria wuxuu ka sheekaynayaa berigii uu macadka azhar galay jaamacad azhar macad bay lahayd oo 3 iyo icdaadisaas wuxuu yidhi nin indhalaa buu hadhaa xusein wuxuu yidhi macallimiintii wax ii dhigayey aan soo yara kooko malaha waa idinku yara dheereeyeen wuxuu yidhi macallimiintii wax ii dhigayey baa waxaa ku jirayba nin macallin qur'aanka imtixaan iga qaadayo wuxuu igu hornayay uu yidhi yaa cama aqra suuratu kada ninkaaga indhaha low suuradda akhri waa imtixaan suuradda ka bax kaaga indhaha low kelimadii baa qalbigayga dhacday hadda macallinku xaqiraadu ma leh way ka qabsatay inta waa sideenoo kale ku dhigay hadda war kaaga dhigaha low ku yara laangaraha kaagan laangaraha kelimadaas looma baahna waxaa laga yaabaa qofku inay shareecada islaamiguna ma ogola hadday xaqiraad tahay markaa daa xuseen wuxuu leeyahay azhar xaqiraad baan kala kulmay kelimadda qalbigayga markii dambe ilaa aan iskaga tegay buu leeyahay waxay sabab u noqotay inuu saddex nin oo indho beelay baan tusaale usoo qaatay cabdullahi ibn cabbaas oo saxaabiya nin gabyaa la oran jiray bashaar bin burd la oran jiray oo gabyaa caana ahaa saalax ibn cabdilquduus nin la oran jiray waxaa usoo qaatay waxaa laga yaabaa dad baa 2 qof 3 qof ba hal dhibaato inay ku dhacdo ay suuragal tahay hal dhibaato inay ku dhacdaa suuragal maalan qof waxaa laga yaabaa in dhibaatadii ku sabro ka kalena ku sabri waayo marka kaasna uu dembi naar ku galo kanna uu ku sabro janno ku galo cabdullahi ibn cabbaas uu indha beelay nin baa caayay wuxuu yidhi anuu ilaahay baa ii qadaray kollay gabayadii abyaadiisa oo ku qoran tahay Soomaaliya ku soo turjumay bashaar bin burdan saas oo kale waqti dambu isaguna isku waqti ma ahayn sidaas la mid ah laakiin saalix ibn cabdilquduus ayaa calaalay oo marka waxa weeye la'aanta iyo mustaqbal la'aan iyo cabasho badan ay ka timid cutubka saddexaad de kolka qolada reer galbeedkan kaga hadlay waxba saas kaga sii noqon maayo kullay warki doona qofkii insha Allah fursad u yeelay buuga waxaan isgarab dhigay qolada reer galbeedka ee Sheekh Abdulrahman Naasir As-Sicdi daa'iman qofkii islaama ee si islaamnimo u hadlaya ama si islaamnimo u qoraya waxa uu qoray qalinkiisa ilaa aakhiradu taabanaya gaaladuna noloshooda adduunyada yara qurxistaano yani markay ku leeyihiin nimanka maalan كيف تكسب الأصدقاء بوجا سوكله إنك المرايكن كقري وحولي هالنقطة نقف وحول بوحك الشيء واحد نقطة مد وحول وناج وأركان وحولي واحد نقطة مد تكدير الجلية وتشجيع عندي رجلين كسمية وحولي هاي دتك أهمية سي أنا دولة عدين دتك سي وناج سنو دقيسو ضدنا كفجو هلا مر من خفر وحكوش يجي ورث هذا الكثير دمه دتك احترام وسودوي قلت كاجا قرو اسكت دينا دتك لا تعب قفكي waxaan sanaya aad xanuunkii xogaa la yara murugootidkii yara faraxsan farxada waxyaaba dadka ku kasban kareysbay kamid waa sax laakiin markaad yara eegto wixii oo dhan waa adduunyo weeyaan wuxuu doonaya adduunyisu ku quruxsanaya si saaxiibo fiican weelo wax fiican oo qurux badan oo adduunyadan ma arkaysid sadaqad la baxo ilaahay dartii wala bax maya dadka yara caawi ku leeyahay si aad ku jeclaadaan marka waxa dareemaysaa wuxuu ugu inay sadxiyaad xagga yara adduunyada inay yara tahay ayaad yara dareemaysaa taasina macna badan qofka muslimkii uma sameynayso meelaha qaar dood yar baan la yara galay meelaha qaar oo ku diiday mesela meelahan uu leeyahay dadka ammaan oo kale ammaantu macna ma samayso qofka hadii mujarrad la iska ammaano wax macna ma samayso laakiin xagga islaamku waxa weeye qofkan hadaad ogtahay markaad yara ammaantid inuu nashaad ka qaadayo oo uu dadaalayo way fiican tahay laakiin hadaad ammaan marka la soo istaagto qofka waxba aan iska ammaanto nacas baad noqonaysaa macna ma samaynayso qofkina waxa laga yaabaa inuu ku sifriyo marka intaasaan oranaya kullay buug ma soo koobi kara oo iga raali ahanaysan wassalaamu calaykum aad baan idinku wada mahadnaqayaa